wacan oo wanaagsan daawadayaashayada qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow. daawadayaal waxaan idin hayaa muuqaal si xasaasi ah ku soo gaaray muqbaahiyaha Shumac Media Channel. muuqaalkaasi oo muujinaya fanaanada Deeqa Afro oo heshay geedkii ay dalbatay in marka ay dhimato la dul saaro oo aan la aasin. fanaanada Deeqa Afro oo bishii la soo dhaafay ka hadashay marka ay dhimato in aanan la aasin amaba codsatay marka ay dhimato in aanan la duugin oo aan dhulka lagu aasin sida caadada ah oo islaamka loo aasana aanan iyadu loo aasin. Deeqa Afro waxay dalbatay in marka ay dhimato geed dushiisa la saaro halkaasi ay ku baaba'do oo aanan la asturin. fanaanada waxay muddooyinkii dambe ku raad joogtay amaba ay raadinaysay sida la sheegay geed aad u weyn oo ah geedka ay doonayso marka ay dhimato in la dul saaro. waxaana wararkii ugu dambeeyay ama muuqaalka aad daawanaysaan uu muujinayaa fanaanada Deeqa Afro oo geedkii weynaa ay doonaysay in la dul saaro iska kontaroolaysa. waxaana geedkaasi ay dul saaran tahay uu ku yaallaa waddanka Sweden ee qaaraddaasi Yurub. fanaanada ayaa sheegtay in geedkan uu ka mid yahay geedaha ay sida gaarka ah u danaynayso maadaama ay iska kontarooshay. haddii ay geed kaloo ka wanaagsanna ay ka hesho dalka Sweden amaba dalalka kaleeta ee ku yaalla qaaradda Yurub ay iyana soo bandhigi doonto. Deeqa Afro waxa ay ka mid tahay fanaaniinta ugu caansan geyiga Soomaalida marka laga soo tago muuqaalkii ay dhowaan ku baahisay in marka ay dhimato ama geeriyooto geed dushiisa la saaro oo aanan la aasin. waxaa jiray muuqaal ka horreeyey oo soo baxay sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii kaas oo ahaa muuqaal aad u anshax xun oo qaybo badan oo jirkeeda ka mid ah si aad ah u muuqanayay amaba ay soo bandhigtay. Deeqa Afro oo muuqaalkaasi markii uu baraha bulshada qabsaday amaba ay ka falceliyeen dadka Soomaaliyeed dhaqankaasi inuu yahay mid aad u fool xun, waxay ka bixisay raaligelin oo ay sheegtay in muuqaalkaasi xilliga laga duubayay aysan ka warqabin, balse ma jirta ilaa hadda war kale oo ka soo baxay markii ay shaacisay muuqaalka ah in marka ay geeriyooto la dul saaro geed oo ay dalbatay. waxayna si cad u caddaysatay fanaanada Deeqa Afro in geedkaasi dushiisa ay ku qanacsan tahay marka ay dhimato in la dul saaro halkaasi oo aanan lagu aasin carrada hoosteeda. Deeqa Afro ayaa sheegtay in marka ay dhimato geedka dushiisa la dul saaro macnihiisa ay tahay in aysan wax cariiri ah ama cabursanaan ah amaba mugdi ah aysan dareemaynin oo ay hawo macaan qaadanayso sida ay muuqaalkeedii hore ku soo bandhigtay. laakiinse diinteena islaamka ayaa sheegaysa qof walba oo islaam ah oo geeriyooda in la aaso lana asturo meydkiisa, balse Deeqa iyada oo nool ayay codsatay inaanan la asturin meydkeeda oo aanan la aasin. waxayna muddooyinkii dambe dadaal badan ugu jirtay sidii ay u heli lahayd geedkii la dul saari lahaa meydkeeda marka ay geeriyooto oo ay dalbatay dadka ka dambeeya ama ehelkeedaba in geed dushiisa ay saaraan oo aysan carrada ku aasin. muuqaalka aad u jeedaan waxa uu muujinayaa fanaanada in geedkii ay baadigoob ugu jirto, balse hadda ay sheegtay geedkan inuu ka mid yahay geedaha iyada meydkeeda la saari karo oo ay ku qanacsan tahay. haddii geed ka sii wanaagsanna ay aragto inta ay nooshahay ay kaasi u wareegi doonto. fadlan daawada ha iloobin inaad subscribe tiraahdo channelkeena